abi dar saxaabigii la odhan jiray markuu soo diray walaalkii uu yidhi war bal nin baa maka ka soo baxay oradii soo waraysa ninkaa xaalkiisa xadiiska kale bukhaari ku yaalla wuxuu leeyahay walaalkii unays waan soo socday oo waa nimi dabeetana ninkii baan dhegaystay abu dar buu ku soo noqday abu dar wuxuu ku yidhi war maxaad ku soo aragtay ninkii ra'aytuhu ya'muru bimakaarim alakhlaaq buu yidhi waxaan soo arkay nin dadka faraya dhaqamada kuwa ugu fiican ama u qurux badan leh nin faraya baan soo arkay saawgeed ayuha alxiba waxaan leenahay haddii nebiguba risaaladiisii calayhi salaatu wasalaam uu cinwaan uga dhigay inamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq aw saalixa alakhlaaq labada riwaayadood ba imaamu axmed baa warinaye hadduu uga dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam cinwaanu risaalaba inay tahay akhlaaqda inuu dhammaystiro waxa loo soo diray waxay culammadu yidhaahdaan akhlaaqduba waa saddex qodob bay sheegaan iyagoo aayad qur-aana deliishanaya waxay dhahaan waa badli اlmacruuf wa kafi اlأdaa wa ixtimaali اlأdaa bay yidhahdaan akhlaaqiintaasay ku dhantay bay yidhahdaan waa qofkoo samaha sameeya badli اlmacruuf wixii curfiga ku fiican ee macruufkee dadku wada qirayo qofkoo sameeya iyo qofkoo dhibtiisa dadka ka haysta aan isaga wax dhibi ka soo fulin iyo qofkoo dhibta dadka kale kaga timaada u dulqaato oo aan cadhoon ama markiiba boodin waxay yidhahdaan akhlaaqiintaasay ku koobantay intaana waxaa laga qaataa bay yidhaahdaan aayadda qur-aana ilaahay leeya khudi alcafwa wa'mur bilcurfi waacrid can iljaahiliin ilaahay wuxuu nabigiisa ku yidhi khudi alcafw wa'mur bilcurf waacrid can iljaahiliin cafwiga qaado dadkana samaha far jaahiliinta iyo wax magaradka waxa kaa soo gaadhana ka jeeso qurux ma laha qofkii farta kugu soo taagaba inaad shan ku taagtaa casriganna saasay u badantay wadaadkii wadaad kale eray ku yidhaahdaa isna waa inuu toban ku yidhaahdaa siyaasigii siyaasi kale eray ku yidhaahdaa isna waa inuu toban ku yidhaahdaa qabiilkii qabiil kale laba eray ka yidhaahdaa isna waa inuu shan gabay u tiriyaa waxeenoo dhami waxa weeyaan haddii midh la yidhaahdo waa in laeg inaan idhaahdo laakiin nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo rasuul ah oo ilaahay waxyi ku soo dejiyey oo kamaalil akhlaaq leh ayay waxay lahaayeen waa saaxir iyo waa kadaab iyo waa kan markaasaa ilaahay leeyay waa acrid can iljaahiliin lama odhanin nimanka kule waa saaxir iska dhici iyo nimankaa kadaabka kugu sheegaya kan sheegaya ee ilaahay wuxuu ku yidhi waacrid can iljaahiliin wax magaratada waxba ha u dhegtaagin idan dhaqanku wuxuu u baahan yahay in nafta la tababaro dhaqanku macluumaad maaha waa laga yaabaa in aqoontaadu badantay macluumaad tiro badan inay information badan inuu madaxaaga ku jiro ama mid diineed ha ahaado ama mid dunawiya ha ahaado laakiin aswa naas baad noqon kartaa haddana iyadoo informationkaagu tiro badan yahay yes informationka tirada badan leh wuu ka qayb qaadanayaa haddaad trainingkaagu fiican yahay haddii dhaqankaagu wanaagsan yahay waxaa asali markaa wuxuu yahay qofka muslimka ahi inuu yahay mid dadka khayrka gaadhsiiyo kow khayru nnaasi anfacuhum ayuu nebigu tilmaamaya dadka waxa u khayr badan anfacuhum linnaas dadka ka ugu anfac badan leh waxaa kaloo nebigu tilmaamaya almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih muslimka dhabta ahi waa qofka muslimiintu ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa mid baa yidhi maxaan qabtaa markaasuu nebigu yidhi sidaa yee markaasuu yidhi haddaan kari waayana markaasuu yidhi sidaa yee markaasuu yidhi haddaan kari waayana nebigu markii dambe wuxuu ku yidhi dee dhibtaaduun dadka ka hayso haddaad wax matarannimo isku og tahay gacantaadii afkaagu ha kuu xidhnaadaan haddaanad waxba kala qaban karin ummadda haddaanad waxba ku kordhin karin si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya akmalu lmu'miniina axsanuhum akhlaaqa xadiiska tirmidi iyo abi daawuud الشيخ الألباني صحيح كنت الماميو إن شاء الله حديث أنت الماميو دمي أما هو حسن أما هو صحيح وحنا نبغى المامي إن من خياركم أحسنكم أخلاقا صحيحين كحديث ياله إن من خياركم حلكي نوحا كم دبايل هاي دتك مرك الله ميره أنت حلك أهي
waxa weeyaan buu nebigu leeyahay axsanukum akhlaaqa waa inta dhaqankoodu fiican yahay waxaa wada taqaanin xadiidka 40 aynu ku wada dhiganno ee dhowr saxaabi nebiga ku yidhaahdeen awsini 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 riwaayadda abu dharre ku taalla 40ku maxay sheegaysaa ittaqi llaha xayثuma kunt وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفرسو وحلت الماما إلهي سيدو لنقم لها إلهي سبحانه وتعالى كدور سنارتي سي غضب كي سي على دي ساليدو تقوى لك عليه هدي بقفو كاردا عنا وناك كده بقيه وناك توبت باوقوه روان هدي كلنا أعمال صالح وبرسة واحد سميسي كدب محال يري وخالق الناس حديث كانوا فيرسو إلهي ما أرنن وخالق صفوة المؤمنين لما أرنن وخالق المؤمنين تتكبر باتشيرة إن مركو ودات كي أنت واحترام يلا تشوغنا إن أخلاق في عنا عمد مركو وطقنا أنو نحيني نبي الله محمد وحلي وخالق الناس ضد الناس ويريض عام قال إيه مسلم إيه منافق إيه عد ولي بكو جرتو ضدك واحد كل دقن تابع ليلي هذا ماها مسلمين تا وضدك أردن قفك مسلم كاهي صاحة الجهاد دو تاقي يسيبوا الرقمة يسوقوا أخلاق دي سوليه لكن صاحات الدعوة هي صاحات كاتشار كلا ودا يدك ودا النولي هي قال يا مسلم بلا ودا تشوقه إلا مدينة قال يا مسلم بوا تشوقه مشركين با تشوقتي يهود با تشوقتي مسلمين با تشوقي عد ولا بوا دقري هذا النبي يقول حلي وخالق الناس بخلق حسن ضدك واحد كل دقنته وردتك واحد قلبي كوجر ما اوغا إلهي ما رميسنا التوحيد سحان هايستا كاسي ادو كوغو كوباي عيد كل اوغي ما جرتو ادغا يا ربي قابو يدين دحيا ددك waxay garanayaan saad ula dhaqanto dadku waxay garanayaan waa ka akhlaaqdaada ama dadka diinta u soo jiidi ama wanaaga u soo jiidi ama firdin oo ka durkin wixii loogu yeedhay waxaan ku soo koobay markaa أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كور رميسا أخلاقي وناجد آد بيؤتر بديه إن بدن بانا كل جتين كتبت الآخرية لكن أرجع عن ربنا ندكوات كيام وحويان هذا نفط تببرتانا ويتببرمي هذا معلومات كقرصتانا معلومات إنجيجن وقلب سنة عندنا إذا كقادن دونين وبيدن أورورين دونتا إلهينا النبي يسيو حكولي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك